magaalada Izmir waxaa markaasi habeennimadii ugu dambeeyay ka baxay doomihii ugu badnaa ee dad Soomaaliyeed oo markaasi ka baxa dalkani Turkiga una gudba dalkaasi Greega. waxaa la sheegay dhalinyaradii ugu badnaa ee Soomaaliyeed ee markaasi magaalada Izmir muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnaa in ay guud ahaanba isaga baxeen oo markaasi Ilaahay u fududeeyay markaasi in ay ka baxaan magaalada Izmir kuwaas oo la sheegay in ay galeen dalkaasi Greega. haddaba warkan waa war cajiib ah oo markaasi laga yaabo in aad ku qanacdid maadaama wararkii hore aan soo gelin jirnay ahaa kuwa aadan ku qancin. haddaba haddii aad maqli jirteen warar ku aadan doon baa halowday, doon baa xumaatay iyo sidoo kale dad baa la soo qabtay iyo sidoo kale dad baa ku dhintay, inkastoo wixii dhintayna aan u rajaynay in Ilaahay u naxariisto, haddana waxaan idin hayaa wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan arrintaas oo ah in dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Izmir Soomaalida ugu badnaa ay halkaasi ka baxeen. waxaa ku jira nin aan halkan saaxiibo ka nahay oo markaasi TikTok tana muddooyinka ugu dambeeyay isticmaalayay oo ku caan ahaa warar tahriiban oo kale oo markaasi isaga qudhiisuna uu dalka Turkiga guud ahaanba iskaga baxsaday oo Ilaahay ka fududeeyay oo markaasi galay dalkaasi Greega. haddaba warkan wuxuu ku aadan yahay in ay farxad tahay maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkani Turkiga ay yihiin dhalinyaro markaasi dalkani Turkiga ku soo khasaaray oo markaasi ay muhiimad u tahay in ay dalkan meel ka wanaagsan dalkani Turkiga u dhaafaan. waxaan rajaynayaa kuwa ku sugan magaalada Izmirna in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala halkaasi iyagoo nabad qaba ka saaro. waxaa jira dhalinyaro badan oo iyagana markaasi tahriibka lagu soo qabto oo iyaguna jeelasha magaalada Izmir iyaguna buux dhaafiyay sidoo kale duleedyadeedaba. dhammaantood waxaan leeyahay in Ilaahay dhammaantoodba xagga ay Greega ku shubo oo maadaama dhalinyaradu ay u baahan tahay isbedel. haddii aad wararka markaa dhibsataan la xiriira arrimaha tahriibka sidoo kale wararka mararka qaar xaqiiqda noqon karaya ee haddii ay ciidan ku dhimatay sidoo kale haddii waxyaabo kale ay dhacaanba inta badan dadku waxay nagu dhaliilaan in maxaad u sheegtay yani wararka dhilada ee ku aadan dad baa ku dhintay. yani war sidiisuba wuxuu noqon karaa sidiisaba markaas dhacday oo naxdin badan, laakiinse yani micno badan ma sii samaynayso in haddii dooni baxdo haddii dooni gasho. laakiinse arrintan hadda ku aadan yani waxaan u soo qaatay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Izmir ku dayacan ama ku dhibaataysan oo aan dareemi karayo in dhibaato badan ay dusha ka saaran tahay. wadankani Turkigana sharciyadii guud ahaan loogu diiday, dalkii Soomaaliyana waxay kaga laabtaan aysan jirin in dhammaantood wax dhibsanaya aan yani xooga ka dayno. dhammaantiina Ilaahay saaxiibeel haydiin fududeeyo. waxaa jira dhalinyaro badan oo aan markaasi u rajaynay in ay dalka guud ahaan insha Allah in Ilaahay ka samata bixiyo. saaxiibayaal halkan waxaan ku baahinaa wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida dalkani Turkiga. si aad u hesho wararkaasi YouTube Google News oo kan ah sidoo kale bartan oo TikTok tiya fadlan waxaan idin ka codsanayaa inaad noo sii share gareysaan sidoo kalena YouTube kan Google subscribe noo sartaan.